heerkan waxaan ku gaaraya familkayga ducadooda iyo faniskayga farxadooda. waa idin salaamay asxaabteeda qaaliga ah meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada channelkiina Sucaada Samaara. haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow, subscribe-na noo saar, gambaleelka furo si aad ula socoto muuqaalada xiisaha leh ee soo socdo. haddii aad horey noola joogtayna soo dhawow. waa ku mahadsantihiin asxaabteeda qaaliga ah sida mar walbo aad waqtiga ii siisaan, aad ii daawataan, like-ta iigu saartaan, commentiga quruxda badan iga bixisaan, iina share garaysaan, subscribe-kana aad iigu deeqtaan. aadaan kaga mahad celinayaa. tan kale waxaan rabaa maanta muuqaalkan inaan kaga hadlo xishoodkii oo sii dhamaanaya. horta ilaah xishoodka nagama qaado, soo waa laga duceystaa in xishoodka ilaah kaa qaado. waxaana fiican mar walba inaad noqoto qof xishood badan oo waxyaabaha qaar ka xishooda. oo maxaan ku rahdaa, xishoodku waa iimaanka. soo iimaan haddii aad leedahay waa xishoonaysaa. iimaanka iyo xishoodkana ilaah nagama qaado. laakiin hadda waxaa soo badanaya in xishoodkii uu sii dhamaanayo, dadkii iimaankii ay ka baxeen, oo social media dadkii israacsiiyeen, oo aad waxyaabo awal laga xishoon jiray ama diinteena iyo dhaqankeenaba aan ku jirin oo xishood laga xishoodo la baahinayo. tusaale youtube-ka markaan usoo qaato waxaa ku arkaysaa dad xishoodkii aada uga sii tagayo, dhaqamo xunxun ku sameynayo youtube-ka, waxyaabo xunxun oo xishood la-aana soo dhigayo. waxaa aada uga xumaadaa laakiin in xishood la-aantaas gabaray ku jirto. maxaa yeelay wiilka waxaa ka xishood badan gabadha, laakiin gabadhiiba xishoodka haddii uu ka dhammaaday wiilkii maxaa sugaysaa? marka aada uga xumaadaa in waxyaabaha qaar aan gabdhaha ku arko xishood la-aanta ah ee baraha bulshada, youtube-ka kulli. horta waxaa aada ula yaabay markaan eego youtube-ka oo kale. horta youtube-ka wuxuu noqday suuqa kala iibsiga ciyaartooyda. markaan ku leeyahay ciyaaraha waxaa ku arkaysaa koox hebel waxay la soo wareegtay xidig hebel, maalin heblaaya soo bandhigaysa. marka waxaa lagu leeyahay youtube-ka maanta waxaa soo bandhigaya jaceylkayga cusub, maanta waxaa soo bandhigayaa ninkayga cusub, maanta waxaa soo bandhigayaa xiriirkayga cusub. maxaa isku dagaalnay? khilaafka qoyskiia waxaa la keenaa social mediaha, youtube-ka iyo meel walbo. waxaa garyaqaan laga dhigaa soomaalida. waa laga xishoon jiray. gabadha qoyskeeda waxyaabaha ka dhaco ma keeni jirin social media. xataa gabadhaha gaarida ah ama gabdhaha wanwanaagsane aqliga u saaxiibka ah ma ogeysin jirin khilaafka iyada iyo ninkeeda dhexmara familkeeda. ayagaa xalsan jiray. ilaan carab iyo ilka u dhow way isqaniinaan. soo dadka isqabayna heshiis ma ahan. dadka isqaba aan ka wadaa heshiis ma ahan, colna ma ahan, dagaal mana macnaha dad heshii mar walba khilaaf uu dhacaya. soo carabka ilkahaasi iskugu dhow isku dagaalaan oo kale dadka isqaban isku dagaalayaan. waxaa dhici jirta in marka hore gabadha iyo wiilka ayaga isxaliyaan, ayaga garta ay dhameeyaan, familka xataa maysan gaari jirin. waa gabadha gaarida ah iyo wiilka wanaagsan aqliga u saaxiibka ah xataa familada ma gaarsiin jirin, dagaalka ayaa ka dhex dhaco. haddana waxay gaaraysaa heer ay ogaadaan saaxiibada kugu xiran ee social mediaha, youtube-ka, meel walba, everything waxaa lagu leeyahay daawo, maxaan ku rahdaa, ninka furaayo heblaayo naagtiisa cusub. kooxaha ku arki jiray xidigeeda cusub ee lasoo wareegtay magistera xidig cusub soo qaadata, hadda daawo xidigeeda cusub iyo goolasha uu dhaliyay goolkiisa ugu horeeyay oo kale. arsenal soo qaadatay goolhaye markii ugu horeysa u ciyaaro oo kale. waxyaabahaas maqla jiray. waxyaabahaas oo ciyaaraha ahaaya mustaqbalkii laga dhigay, future-kii waxaasa laga dhigay. waxaa arkaysaa youtube-bada. horta youtube-ka ugu daranba meesha ugu xun wax lagu faafiyo. baraha bulshadana sidoo kale aada lagu sii faafiyo. youtube-ka hadduu yimaado imaana meelaha kale, snapchat-ka, maxaan ku dhahdaa, instagram-ka, tiktok-ga, facebook, wuu imaana, whatsapp-ka, waxaasoo dhan wuu imaana. youtube-ka horta kasoo beermaa. waana laga qurux badan yahay in wax adiga familkaaga, qoyskaaga, adiga sharaftaada ah in meelaha laga duubo. horta waxaan arki jirnay awalkii hore, sanadahan dambe marka laga soo tago sanadihii ka horeeyay waxaan arki jirnay wiilka iyo gabadha xiriirka sameynayo
lama ogaan jirin markii isguursadaan basaa la arki jiray hebel iyo heblaa isguursaday waa loo hambaliyo jiray meesha looga tagi jiray hadda waxaa soo badatay waxa la dhahaa romantic qalada laga fahmaday waxa la leeyahay horta inta la guursan ka hor sabar la sii gala waa la faafina ninkii iyo gabadhii uu nikaax ku dhicin isku dhagdhagan sawiradooda la sii faafiyay nikaaxna kuma dhicin ya okay waxaa la leeyahay meel hebel todobax u aadnay meel hebel honeymoon kala aadnay meel hebel wax ku sameeyay waxa soo laga xishoon jiray gabadhii wiilku isguursan jireen caadi waa dhaqmi jireen hadday isfuraan cidna ma ogaan jirin hadday isdagaalaan cidna ma ogaan jirin hadda laakiin xishood la'aantii waxay keentay waa la isfurayaa gabadhii waxay ku baahinaysaa baraha bulshada ama YouTube-ka waxay la soo fariisanaysaa ani hebel waa kala tagnay asigana waxay la soo fariisanaa ani heblaayo waa kala tagnay baraha bulshada waxaa ka dareemaysaa meelaha ay soo dhigto muuqaalada ama sadska aan jeclahay iyo snaapki waxa soo dhigaysaa arkimaysid ilmadan kubi jiriyo oo intaydi jawaal fahamtaas in la furay so everything wuxuu la wadaagi jirtay dadka heesa jacayl lagu ogaa calaacal u gudubtano marna xay soo dhigay tagtay yaa ku tabe walaalnimada naga badan aan soo qaada Allah kiin jaamac ya marka xishoodka ilaah naga maqaado waana qurux badan tahay waxyaabaha qoyska ku saabsan inaan lala wadaagin dadka kale so waxa qurux badan ina adiga waxyaabaha ku gaarka adiga qarsato laakiin la soo aad waxyaabaha kale hadda tusaale aan ma diidani YouTube wuxuu leeyahay lamaanayaal oo leeyahay aad badan oo aad u daawado aad u jecelahay waxay soo bandhigaan wax dadka faa'iido ah iyo ayaga qoyskooda waxyaabaha farxad leh ay sameystaan ay soo bandhigaan waxyaabaha ku soo kordho wax barbaleema ma lahan waa dad noloshooda farxadda dadka kale u sii faa'iideynayo aan hadda waxa ka daawadaa YouTube lamaanayaal aan ku daydo aan jecelahay mustaqbalka ina ayaga camal aan u noqdo inkastoo dadka qaar ay dhahaan nolosha banaanka iyo nolosha gudaha way kala duwan tahay haddana adiga sameeysan karo nolosha quruxda badan ayaga ka arkayso mid gudaha ina ka dhigato wax qasaba ma ahan laakiin ina soo gashid baraha bulshada ama YouTube-ka ma diidane laakiin la soo gal wax xishood iyo maxaan ku raahdaa dhaqan wanaagsan ah laakiin hadiiba ay noqonayso in waxa ugu daran gabar aan wali la guursan aad 10 xiriir oo waxa arkaysaa social media ugu burburay wali ma la guursan hebel la socotay soo bandhigtay way isku dhaceen waa la faafino hebel kale la socotay soo bandhigtay way isku dhaceen waa la faafino 10 ka tiri waa wadaash intay guursan ka hore wadaashibe dadka xiriirku ka burburaa 100 xiriir dadka burburo 20 xiriir dadka burburo calafa jiro waxa la dhahayo oo qofka marka isla socotaan aad isku weyneysaan soo wala qarsadaa ku fiicanta ina ku qarsanaadaan hadaaba sir lahayn maxaa adduunka joogtaa oo wax ku qarsaneenbo everything social media YouTube daala soo aado maxaa mustaqbalku ahaabaa iyo aboow marka ani waxaan leeyahay xishoodka laga tigin dadka YouTube-ka waxyaabaha soo dhigdhigana ayagana aad iyo aad talada horta waa lama dhicin ay ku soo qoraan heblaayo soo bandhigtay ninkeeda cusub nin iyo gabar iyo wiil oo waxa la arkaa caadi isku sabiran oo xataa wax ka dhaxeen xiriir laga dhaxaysiina waa is jecelina leeyano wax mana ka dhaxeeya waa sabirkood bis lagu arka meelaha waxa leeyahay heblaayo hebla jecelkeeda cusub heblo jecelkiisa cusub ciwaana laga soo dhigaa hebel iyo heblaayo maxay isku fureen waxay ku kala tageen waxa lagu leeyahay khilaafkooda halkuu ka bilowday dad waxay ku dhaan familkooda la hadlay wuxuu ka bilowday saas been YouTube-ka lagu kala kacsanaa laakiin aad views-ka raadinayso dad kale noloshooda ha ka raadin ee ka raadi dhanka wanaagsan xataa waani dadkan isfuraayo laakiin hadda adigii ku faafis meesha ka warna dhahdo hebel waxay ku kala tagaan saas ma qurux badno marka ani waxa leeyahay xishoodka waa muhiim ilaahna nagama qaado xishooda ilaahay ka baqa xishooda waxyaabihii xun iska daaya waxyaabaha oo qeyrka aan heena faafinaysa dad waxa arkaysa u gurbaantumaa hebel waa isfureen waaba xalfada loo dhigana waa loo gurbaantumaa waa qoys dhan oo burburaay alle waa fiicanta
marka intaasaan jeclaani inta tabarteeda inaa idiin sheego xishoodka ayaa laga tegin ciddii qaadato iyo ciddaan qaadanbo inkastoo dadku ay kala qalbi fiican yihiin haddana ay qurux badan tahay qofka walaalka ah waxyaabaha uu ku soo jeeday inaad qaadato si loo qaato adiga beri waxaa soo jeedin doonto soo adi waxaa laga yaabaa beri inaad soo jeediso waxyaabo waana ah in lagaa qaataa jeceshaa soo maahan adigana qaado maanta waxaa ku qaldan tahay inaad saxdo marka ani waxaan leeyahay xishoodka ayaa laga tegin qaladaadka badanna ma fiicno oo waxyaabaha adiga kaa dhadhaca ku faafinaysid baraha bulshada sirtaada ku qarsanaato haddii aad sir lahayn waaba dhib haddana qof walba caana qof walba social media ku jiro xataa hal sawir soo dhiga caan waa ma fahanti soo yaa looga faa'iidaysan caannimadiina si qaldana uga faa'iidaysanina okay si fiican uga faa'iidaysta meeshana naga daaya maalba Ronaldaha iyo Messi-ga kala burinaysaan iyo Wilsharka iyo Balotelliga iyo suuq kala iibsiga ka dhigtaan intaasaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo muuqaalkayga